Asalaamu calaykum asxaabtan dhammaantiin waan idin salaamay kusoo dhawaada channelkeena fadlan mar kale haddii aadan channelka subscribe karin ha iloobin inaad subscribe gareyso channelkeena waan ogahay waqti dheer baa kasoo wareegay asxaab badanna way soo codsanaysay qaarkood though waxa weeyaan still halka qof fikirkiisa waan qiimeynaynaa because aad uma badnin sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa insha allah inuu hadafkeena aynu gaarno oo subscriberska aynu hadda kunka gaarno because goal baynu leenahay insha allah marka dhammaantiin codsigaas ayaan ka codsanaya inaad ka qayb gashaan insha allah subscribe gareyso channelka hadaa marna soo boqtay aadan naga noqonin asxaabta soo codsanaysa waxaa kamid ahaa sida guryaha loo helo marka anigana information waa inaan raadiyo ayaan ku qasbanaa aan marka ayadaa ku qanco ugu dambeyn information ayaa soo helay marka aan is iraahdo hadda waad share gareyn kartaa so intaanan gudagelin qaabka loo helayo waxaan rabaa inaan ka yar hordhaco lacagaha iyo qaabka ay noqdaan inta badan lacagaha halkan kama predict gareyn karo laakiin minimum $100 baan ku dhihi karaa guryaha minimum $100 baa lagu degaa way jiraan guryaha normal ahayn laakiin aad waqti hore u ahaa oo laga yaabo inuu markaas isla $100 aad ku heshid laakiin minimum aniga waxaan arkay macal gobolada qayb kamid oon arkay waa $100 waxaa sidoo kale aan kuu sheegayaa inaanan ku dhahayn lacagtaas ayaad guriga ku helaysaa sababta oo ah dhowr shay guriga ku kala duwan yihiin gurigu marka uu maran yahay iyo marka uu alaab taalo way kala duwan yihiin kow markuu cusub yahay iyo markuusan cusbeenna sidoo kale xataa marka uu meel qurux badan ama area strategy ku yaalo iyo marka uusan ku oolin way kala duwan yihiin saasoo taa marka ay suuqa u soo dhow yihiin iyo marka ay suuqa ka fog yihiin taana way ku kala duwan yihiin marka waxyaalahaas oo dhan anoo ka duulaya ma sheegi karaa hal qiimo oo saxa laakiin waxaan kuu sheegi karaa oo kaleeta minimumka qiimayaasha inta badan ay ka kacaan waa $100 kor bay u socdaan marka adiga depending on meesha aad ka heshay sida inuu suuqa u dhow yahay sida inay caasimad tahay sida inuu tahay meel lagu badan yahay meel basas ku aadaan sida inay tahay meel strategy oo kale inay tahay meel cusub oo kale inay tahay meel alaab taalo oo kale inay xataa alaabtaasi cusub tahay oo kale because kind of alaabaha waxaa kamid ah cusaybkooda iyo waxaas lagu qiimeynaya fridgeska iyo waxyaalahan kale ovenska iyo kuwaas so waxaas oo dhan alaabta taalo marka ayada fadhiga iyo waxaas dhan baa la eegay so hadda taas qiimaha go-aan kuma sheegi karin laakiin adiga marka ayada halkaas aad ka qiyaasi kartaa mid ogow qaacidadaas yani shayga uu kolba ka xun yahay buu ka qiimo jaban yahay yani uu ka maxaan dhahay xataa iyaga marka qaarkood guriga cusub iyo guri suuluhu ayagoo kale haddana suuqa bartankiisa ku yaala again basas badan aadaan meel strategy ku ayaa wuxuu ka qaalisan yahay guri cusub oo ku yaala magaalada tarafkeeda ayuu ka qaalisan yahay marka taana iyada qorshaha ku darso sidaa darteed kuma sheegi kara laakiin sawir guud baan kaa tusi karaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan waa qiimihii waan fahnay iyo strategy iyo dhammaan waxa meelaha ay ku kala yaalaan laakiin sideen u heli karaa aniga hadda waddanka waan ku cusbahay sideen waddanka anoo ku cusub guri u heli karaa dadka soomaalida waxay sameeyaan hal weyga ay sameeyaan waxa weeyaan inta badan 90% waxay aadaan imlaakji wax la dhaho luqada turkiga ama inaga aynu naqaano qofkan u dhaxeeya labada qof la dhaho dilaalka oo kale so qof baa dilaala waxa weeyaan meel buu furanaya then wadadan aan kuu sheegay unbuu isticmaali doonaa kabacdina guryihii buu soo aruurini adiga ayuu gurigaas ku keenay ama gurigii baad u sheegay haddii guri 3 qolaan rabaa meeshaas ku yaala ayaan rabaa waxaan rabaa sidoo kale qiimo jaban baan ku rabaa qiimahaas baan ku rabaa inta badan waxaas baad u sheegaysaa qofkii marka gurigii buu raadinaya gurigii buu helaya muxuu ku leeyahay mataqaanaa qiimaha aan kugu soo tusayo oo lagu daray qiimaha guriga ayaad bisha koowaad iska bixinaysaa macnaheedu ay tahay isagu wuxuu kugu soo tusayaa qiimo marka ayada laga yaabaa inta badan waxa weeyaan qiimahaasi qiimaha lacagta aad guriga ku karaysanaysa qiimo lamid ah ay dadka ka qaadaan haddii aad $300 ku karaysanayso waxaa laga yaabaa in $300 kaa qaadaan sidoo kale waxaa jirta deposit lacag deposit oo qofka laga qaado marka uu guriga karaysanayo taasna waxa weeyaan qofkaas depositka lacagta uu bixinayo mostly turkidu inta badan waxay sameeyaan qofkaas depositka uu bixinayo iyo bisha koowaad lacagta uu bixinayo ayaa isku mid ah way isla egyihiin laakiin inta badan depositka waxay dhahaan dib baa la idinka siinaya markaad guriga ka baxaysaan iyo haddii guriga aad dib gaarsiisaan ama alaabta taalo oo kale waxaas ayaa laga jarjaraa lacagta somehow waxaas baa la dhahaya marka yani anyway informationka basic ah waa kaas marka helitaanka dadka Soomaalida inta badan saas bay sameeyaan laakiin wadada ka duwan oo ka dhib yar ayaan kuu sheegaa kaaga qiimo jaban adiga wadadan markaad isticmaasho waxaa kale oo isticmaala wadadan dilaalka banaanka fadhiya so sidaa dilaalkii wuxuu isticmaalay lacagta ku kaaga qaadanayay
baad adigu direct u isticmaalaysaa kalaad waxaad u baahan tahay inaad laptop heshid ama computer ama telefoonkaaga laakiin wifi fiican and then waxaad samaynaysaa haddii aad haysato qof Turkiga ku fiican wanaagsan so applicationka websiteka softwareka caadi ahaan websiteka waa sidan laakiin aniga websiteka inta badan kuma isticmaali waxaan aad uga aqaanaa applicationka so applicationka halkaas aad u helaysa ayaan kuu sheegaya applicationka waxaa la dhahaa so telefoonkayga ayaan idinla share garaynaya 1 minute so applicationka waxaa la dhahaa saaxiibindeen baa la dhahaa then waxa waaye saaxiibindeen ayaad ku qori applicationka meesha haddii aad under your isticmaasho aad applicationska meesha under your laga soo download garaysto iPhone-kana sidoo kale meeshiisa aad then waxaad ku qori saaxiibindeen yeah as you can see hadda saaxiibindeen asaga korku ii soo dhiga waa ka aragtid saaxiibindeen ay ku qoran tahay then saaxiibindeen marka aan ku dhufto aniga marka uu ii download garaysan yahay laakiin adiga marka waa soo download garaysanaysaa right applicationka sidan buu eegyahay so waxaan samaynayaa hadda aniga waa open garaynaya marka hadda waxaan samaynayaa waxaan joogaa meel caasimada ka yar fog tusaale waxaan rabaa inaan gurigii raadiyo so waxaa ku soo baxaysa maxaan dhahay page sidan oo pageka home pageka sidan uu eegyahay then waxaa samaynaysaa home pageka qaybtiisaas meesha aad arkaysid as you can see aad falaadha arkaysid halkaas ayaad ku dhufanaysaa so halka waxaa kuu soo baxaya marka aad ku dhufato page noocan oo kale oo eg baa kuu soo baxaya probably xataa dad iPhone isticmaalaysa ama Samsung isticmaalaya inta badan saa uma kala duwana pageka afkiisa hore and then waxa waaye imlaagta ayaan aadaynaa meesha imlaag ku qoran tahay imlaag marka halka ay ku qoran tahay weeye and then imlaag marka depending on waxa aynu raadinayna hadda waxaynu raadinaynaa guri sidii loo kiraysanayay insha Allah marka application xakan hataa haddii aad gaari kadanayso haddii aad ashyaa kala samaynayso waxyaalo badan ba gurigan laga eegta xataa haddaad guri kadanayso halkan baad ka heli kartaa inaad aado dilaal ma ahan dilaalka lacagta uu kaga qaadanaya ghayru caadiga meesha uu kasoo helay waa un halkan applicationka weeyaan applicationka baan marka aan soo raadinayay applicationkan iyo sida loo isticmaalo dhammaan waan ku kala dhigaya waxa weeyaan markii aad ku dhufato imlaagta waxa weeyaan waxa ku soo baxaya pagekan ayaa ku soo baxay aad aragtid so meeshan waxyaalo badan oo Turkiga ku qoran baa ku soo baxay ku jira line ku jira so cannot share arsa borjala marka aad waxaad raadinaysaa waxa waaye so cannot ayaa aadi cannot marka aan ku dhuftay halkaas bay ku taala halkaas luqada cannot so ani cannot ayaan ku dhuftay so cannot marka aan ku dhuftay waxa weeye kiralik ayaan haddana ku dhuftay because markaas iyada waad gadanaysaa kiralik macnaheeduna waa kiradii Soomaaliga so kiralik ayaad ku dhufanay and then markaad kiralik ku dhufato waxa ku soo baxaya pagekan noocan oo kala and then pagekan maxaad ku dhufanaysaa daa'ire meesha ay daa'ire ku qoran tahay as you can see daa'ire so waxa ku soo baxaya page noocan oo kala halkan hadda waxaad la arkaysaan waxa weeyaan dhammaan guryaha kirada so guryahan waxa weeyaan dhammaan Turkiga ay goboladiisa oo dhan ay ka kooban yihiin marka si aad u hesho guriga adiga kugu dhow ama gobolkaaga iyo agagaarkaaga waxaad ku dhufataa qaybta systemkaaga ay ku qoran tahay filter leh so halkaas ayaan ku dhufanay adan waxa ii soo baxay meeshan ayaa ii soo baxday connection sida u buuxinay markii la fiiray halkaas ay ku qoran tahay yaknimda haddii aan ku dhufto maxaa arkaysaa tum musaabilaad yani macnaheedu ay tahay yani distancega oo dhan all distances right so adi distancegaas soo dhaweyso waxaa ka dhigataa meelaha guryaha yani hadda 13 kilometer 12 kilometer waa around you right meelaha wax ku jira 10 kilometer so 10 kilometer macnaheedu waa meesha aad joogto agaarkeeda waxba inta kale inaad buuxiso ma baahnid halka tamaam marka aad dhahdid waxa halkan u imaanaysaa fiat macnaheedu ay tahay lacagtii so halkan lacagta ayaad ku qori kartaa haddii aad rabto weeyaan lacagta inaad si khaas u raadiso lacagta aad rabto NAS macnaheedu waa minimum luqada Turkiga so hadda minimum guriga aad raadi lacagtiisa minimum waa inay noqoto laminkaas minimum waa inay noqoto 500 lacagta Turkiga minimum 500 waa inay noqoto lacagta Turkiga maximum waa inay 800 noqoto tusaale 800 hotel marka bal aan fiiriyo halkaas waxaan fiyaata ku qoray let me say 500 kan 580 no 800
amaba dollarka aan u bedelo dollarka ayaa ka wanaagsan halkan waxaa dhahdaa $150 USD dollar and weliba saas muhiim uma aha halkaasi waxaad aadaysaa halkan ay ku qoran tahay binaa yashi macnaheedu waxa weeyaan meeshan gurigan inta gurigan uu jiro adiga marka haddii aad buildingyada daahay aad ka cabsanayso dumintooda oo kale waxa weeyaan binaa yashidaas ayaad ku dhufani marka waxa weeyaan guriga buildingkii aad rabto inaad hesho inta uu ka kooban yahay jiritaankiisa yacni marka halka aad arkayso 31 sano ugu hooseysa waxaana ugu hooseysa mid haddaba cusub so hadda waxaan ka dhigi bal 5 ilaa 10 sano mid jiray waa normal oo kuwa middle-ka kuwaas caadi and then tamam waxa weeyaan halka kale ugu muhiimsan ayaduna waa bartan meesha aan rabo inaad intuso meeshan weeyaan Kimden meeshana aad muhiim u ah Kimden macnaheedu waxa maxay yaad guriga ka kiraysanaysaa weeyaan haddii aad halka ka dhigto imlaak meesha aad arkaysa aad ka dhigto because marka koowaad tum buu kusoo qorayaa tumo oo macnaheedu tahay dhammaantood all so adi marka koowaad waxa weeyaan haddii aad imlaakta ka dhigto ama tumta aad gudayso allta aad gudayso macnaheedu waxa weeyaan dhammaan macalkii ka imaanaya kiraaliga iyo kii ninka guriga iska lahaa labadaba taa marka waxa weeyaan guri laga yaabo aad ka heshay yaa laga yaabaa inuu nin kiraajiga iska haysto waxaan ka wadaa nin dilaale iska haysto sidaa darteed adi maxaa samaynaysaa halkaas waxaad ka dhigaysaa saaxiibinteen macnaheedu tahay the owner ama qofkii guriga iska lahaa dhab ahaan qofkii u lahaa sidaa taas maxay ku fududaynaysaa inaad taas macnaheedu waxa weeyaan markii aad guriga qofka iska leh saaxiibinteenka aad ku dhufato macnaheedu waxa weeyaan qofka guriga iska leh ayaan rabaa inaan guriga ka kiraysto ma rabo mid asaguba sii kiraysto inaan ka kiraysto weeyaan because kan asagu waa nin gurigaas asagoo lacag sii dul saaranaya kana waa kii guriga iska lahaa adiga iyo qofka guriga la ayaa wada xiriiraya taas ayaa wanaagsan so saaxiibideen ayaan ku dhufanaya so halkaa marka aan saaxiibideen ku dhufto waxa weeyaan inta kale saas muhiim u ah iyaduna waxaa raacsan oo yani iyaduna muhiima alaabta inay taalana halkan baad arkaysaa ashyaali marka aduma waxaad rabtaa qof guri maxaan dhahayay alaab taalo mise waxaad rabtaa guri aysan alaab oolin taana sidoo kale halkaas ayaad ka arkaysaa so bal halkan aan dhaho haa iyo maya because labadaba dadka guriga alaabta inay taalo rabo iyo dadka alaabta inay raadinayaan ayaan video iskugu daray so allta ayaan ku daynay ayada marka haddaad raadinayso guri ay alaab oolin halkaas ayaad tegaysaa and then maxaad dhahaysaa alaabta ashyaali haa macnaheedu evet baad ku dhufanay haddii aad haa tahay haddii kale waxaa yar leedahayna no macnaheedu waa halka gurigaysan alaab oolin baad ku dhufan halka so hadda inaga waxa weeyaan guriga labadaba ay taalo ayaan raadinayna wax kale oo muhiima ma arkin waxa ayaduna muhiim ahaan jirtay inuu gurigaas lahaado bahalkii qolalka so iyada qolalkiina waa kan as you can see halkan oda size ay ku qoran tahay oda size barta ay ku qoran tahay so oda size baad ku dhufani marka gurigu ma inuu qol iyo suuli u noqdo iyo maxaa jikadiisa un baad rabtaa qolka seexanaysa suuliga jikadii mise waxaad rabtaa sidii inuu ku noqdo 1+1 ay macnaheedu tahay fadhi iyo qol iyo jikadaadii iyo suuligaagii oo inaad adiga kaligaa degto mise waxaad rabtaa 2+0 oo macnaheedu tahay laba qol iyo jikadii iyo wixii oo fadhi ma jiro mise 2+1 ay macnaheedu tahay labadii qol iyo fadhi inuu yeesho marka intaba jikadu way la socotaa iyo suuliguna tamam 2.5 iyo waxaas qolol yar gaagaaban qolol yar oo kala laga yaabaa inay kamid yihiin 2+2 macnaheedu saas oo kale yani inuu laba balkon la socdaan baa laga yaabaa 3+1 oo kale waxa weeyaan saddex qol iyo fadhi marka inta badan dadku waxay isticmaalaan ama 3+1 ama 2+1 ama 1+0 oo macnaheedu tahay qol kalaata ama adiga 1+1 oo fadhi baa qofka oo la socda so hadda tusaale ahaan waxaan dhahayaa inaan aniga raadinayo qol 2+1 qof qol laba qol iyo kali iyo bahalkii ayaan ku dhufanaya so hadda as you can see laba qol iyo hal fadhi so laba qol iyo hal fadhi waan ku dhufanaya as you can see and then tamam so markan intaa dhammaystiro asxaabay waxaan usoo gudbayaa siralar meesha ay ku qoran tahay halka si aan u arko waxa ay soo baxay saa arkaysaan 26 guri baa ay soo baxday oo noocaasa 26 guri aynu eegno
sorry serialarta ku dhufanayna isagoon hoos u soo wadaraa laho hoos u soo wad as you can see hadda waxaa ii soo baxday guryihii markaan raadinayay waa kana hadda 850 700 950 850 1050 guryaha iyo lacagaha 650 so as you can see 100 baa minimum yani korbe 100 bay ka wada kacaan as you can see 450 ka arkaysid bal aynu ku dhufano fiiri marka sawirro ayaa inta badan la socda guriga waad arki kartaa so hadda gurigan tusaalaan sawirkan ayaa la socda bal aynu fiirina sawirka hadda waxa weeyaan sawirka hadda arkaysid maxaad aragtaa guriga qaabka fadhigiisa uu egyahay waa guri fadhigiisa sidaa uu egyahay waayahay wajhada horena waa sida oo meel guri noocaas ayuu ku yaalaa again waxa weeyaan markii korka laga sawirana meel noocaas ayuu ku yaalaa wow afaafka hore aad buu qurux badan yahay gurigan markaad hoosta eegto waxa weeyaan waa 2+1 gurigani waa 2 qol iyo fadhi ashiyaalina alaabay taala way taala qiimihiisu waa imisa waa 450 wow yani waa arintaas waa fursadaasna waad aragtaa so ayadana waa mideeda meesha cut size macnaheedu cut size waxa weeyaan bal inta ay ku taalo floorka ay tahay meesha ay ku tahay levelka ay buildingga ka tahay kana waa levelka 7 aad buu u fog yahay yani buildingga dhowr jeer ba kor loo fuulay waa ka 7 iyo macnaheedu waxnaas anyway hadda gurigan waynu aragnay waa guri $100 ka jaban ka yar yani waa guri fursada tusaalahan laakiin meeshaas ayuu ku yaalaa meesha uu ku yaalo yani distancega ayaad ka eegaysaa waxa laga yaabaa distancegina halkan baad ku aragtaa ajiklamaaga macnaheedu waxa weeyaan sida qofka waxa loogu talagalay iyo gurigan ninka iskala ayaa halkan wax ku soo qoraya sida inuu rabo maxaan dhahay waxyaalo uu diiday hadii wax dhigi karaa gurigan anu gabdho uma siinaya wuxuu dhigi karaa gurigan caruur iyo waxa lama rabo guriga wuxuu dhigi karaa dad maxaan dhahay wax baranayaan ayaan ka kareynaya balna hadda waxa halkan ku soo qoray aynu eegno يعني هذا halkan wuxuu ku soo qoray ardayda wax barata iyo kuwa shaqeeya iyo kuwa single intaba waan u ogolahay ayaa halkaas yani ku qoran adjective kuwaas ayaa kamid ah marka aad inta mid u maata yani muhiim ah inaad gabina wada akhriso waxa kale oo halkan uu ku soo qori kara aydaadka macnaheedu waxa weeyaan lacagta qofkaas uu iska bixinayo oo buildingiga waxa jirta lacag lagu xaaqo mal walba buildingiga hagaajintiisa iyo waxa lacag qol walba laga qaado ayaa jirta marka lacagtaas ba aydaad la dhahaa soo halkaas hadda aydaadka asaga wuxuu ku sheegay in 60 taala tahay bil walba marka isku darso adigu kirada bil walba waxaad bixinaysaa 500 iyo intaas 510 taala sayla tahay wax noocaas ayaad bixinaysaa haddaba meesha uu ku yaala ayaan eegayaa meesha uu ku yaala hadda rabto inaad eegto kalaata waxaad ku dhufanaysaa konomada halka ay ku qoran tahay waxa weeyaan halkaas ka bacdina adiga meesha aad joogto iyo asagu inta uu ku jiro ay isku eegayaan adigu meesha aad joogto iyo asagu inta uu ku jiro ay isku eegayaan so meesha uu suuqa kaga yaala arki kartaa inta uu jiro suuqa ayaad arki kartaa waxa weeyaan waxaas dhan baad halka ka arki kartaa so taasna aad bay taasna ku caawinaysaa koonu aad buu muhiim yahay so hadda halkan buu ku yaalaa marka miyaan dhihi karaa halkaas itus sure harito ghoster halka arkaysa maapka aan ku dhufto si aad ila aragtaan martaas ayaan ku dhuftay indan maxaa ii soo baxay korka harito ghoster yani bal maapka igu tus marka maapkii hadda igu tusaya tamam bal maapkii isku eegana ani iyo meeshaas intaynu isku jirno so ani iyo maapkaas ani iyo meeshaas intaynu isku jirno waxa weeyaan wax aan dhaneen 3 mitir wow aad buu igu dhow yahay yani ilaa intaas buu ii jiraa ani tusaalahan haddaan halkaa joogo asaga halkaas ayuu guriga ku yaalan so tan waa example aan hadda ku tusayo so aan ku noqdo maxaan dhahaa applicationka dib aan ugu noqdo so aan dib ugu noqdo applicationkii gurigan waynu aragnay bal guri kalena aynu aragno waxa weeyaan okay gurigan inaan ka helnay ka soo qaad mid baan rabaa inaan kugu daro maxaa sameynaysaa marka guriga keeshid halkan ay message gondor ku qoran tahay inta badan waxa ku qoran telefoonkiisa qofka laakiin hadda qofkan isagu message-ka ii soo qor muuqaal maxaa sameyn waa ku dhufanay and then
address hadaad leedahay iyo wixii baad gelin inta badan laakiin waxay sameeyaan waxanba uma baahno qofku numberkiisuba soo dhigay hadda ninkani message buu soo dhigay qofkani oo messageka halka message iga soo dir buu ku yiri kalaad waxaad sameyn kan systemkan ayaad applicationkiisa samaysan yani emailkiisa iyo passwordkiisa uma layn maayo inuu muhiim yahay asxaabay laakiin haddaad soo codsataan xataa waa idin tusay iyo way kalaba insha Allah messageka goondar halkaas ay ku qoran tahay ayaan message uga diray bal aynu ku kala kutuso aan hadana inaan wici karno ee eegno so hadda gurigan waa 650 lacagtiisa macnaheedu tahay $100 oo wax yar ku $105 meelaha bal aan dhaho waayahay meesha iyo sidoo uu egyahay wakana waxaad moodaa inuu yahay guriga dhalada meesha u sareysa inuu ku yaalo waxa weeyaan waa 2 qol iyo hal waxa weeyaan halkaas systema meesha ay dualkaas ku qoran tahay combi aad bay muhiim u tahay iyaduna because guryaha bar xataa kuwaas ma lahan bahalkaas waxa weeyaan bahalkii kulaylaha waa biyaha iyo wax walba ku kuleelinaya so sometimes inuu ku qornaanin ba laga yaabaa marka kaas muhiim bay u tahay inaad ku raadiso guryahana meel ku qoran so waxa weeyaan ashyaadina alaab ma taala guriga halkaas baad eegaysaa maya ba ku qoran alaab ma taala gurigan marka waa guri maran yaad ka helaysaa gurigan waxaad ka helaysaa qofkii iska lahaa inagu saaxiibndeen baan dhahnay mar walba aan qofka iska leeyahay waay qofkan hadda waxa weeyaa gurigii markii aynu aragnay sawirkiisa aynu aragnay korka ku qornaa waxa halkan noogu qoran oo ma ka hadlay ka soo qaad ka bacdi maxaa ku qoran ara halkan marka kan waxaan ku sheegay inaad telefoonkiisa aragtay ara markaan ku dhufto veerahda numberkiisa ii soo dhigaya and then halkaas waa numberkiisa saan ugu ekar bartaas ayaan ka wacaya numberkiisa marka maxaan leeyahay waxa weeyaan waan wacaya waan u sheegaya waxaan leeyahay guriga bartan ku yaala adresska ayaan eegaya guriga bartaas ku yaala ayaan ka helay dhigatay meesha labada qol iyo maxayga imsa ayaad iga keenaysaa anima isiinaysaa haddii aad uu halkan soo dhiga ajiglamaaga waxa weeyaan waka hadda qofkan oo kale ardayda uu siinaya so zaman waxay ka dhigan tahay qofkan inuusan ku diidin because marka qaarkood halkan maxaa la soo dhigaa annagu arday ma siinayno ama annagu gabdhaan siinayna marka ajiglama macnaheedu waa informationkaas oo kale inaad eegto aad bay muhiim u tahay informationka inaad eegto aad bay muhiim u tahay so waxa weeyaan markaad gurigii aragto ayar ajiglama ku dhufo fiiri cidda la siinayo meeshuu ku yaala eeg ka bacdina haddii aad ka hesho ayar waa that's all yani wakaas yani inta ugu muhiimsan saas bal aan application qolka guri kale ku dayno tusaale ahaan guriga kale waxa weeyaan halkan buu ku yaalaa lacagtiisu waa 1500 waa 150 bal kunka ani waan ka helay kunka aan eegno and then macnaheedu waa $200 kan waayahay waxa waaye halku ku yaalaa horta guriga binaa iyo shiba halkan ku qoran binaa iyo shiba macnaheedu waa 5 ilaa 10 sano ayuu jiraa gurigan waxa kaloo halkan ku qoran odasaysi waa 2 qol iyo hal fadhi yani suuligiisa iyo bahalka jikadiisa waxa uu wataa waxa halkan ku qoran balcon oo macnaheedu tahay balconka yani balcon waxaan umaleynaya Soomaaliya inuu balcon yahay balcon buu leeyahay gurigan alaab ma taalo waxa weeyaan depositka lacagtiisa ayuu kan inoo soo dhigay wax marka ayada la isla qaatay maahan isagu aydaadka waxa weeyaan bishii inta la iska qaado guriga lagu hagaajiyo waxaas lacagteedu waa 9 oo teele marka waxay ka dhigan tahay 19 baad bil walba 19 baad bixinaysaa probably qofka aynu ka helayno waa saaxiibinteen ninkan sidoo kale message ayuu noo soo diray ajiglamaaga ayaynu eegnaa waa bartaas ajiglamaaga markaynu ku dhufano maxaan arkaynaa gurigan muxuu yiraahday kunteele ayaa lagu qaadanaya gurigan iyo meesha uu ku yaalo daayiro 16 wadada iyo waxaas buu sheegay kan marka asaga kan يعني contract iyo project kan isaga marka ma sheegin exactly cidda uu siinay arday ma u diiday ay ma diiday kan oo kale marka maxaa ku sameynaysaa after oo eegtin meesha ku yaalo hadaad ka heshay hadii kale aad aragtid and then maxaa sameynaysaa marka ka bacdi waxaa sameynay message baad u diri so kan oo kale marka message baad u diri laakiin kuma ogolaanin kan inuu telefoon ku siiyo laakiin badankoodu telefoon bay soo dhigaa bal hadda kan ila arag 150 ka waxa weeyaan as you can see kan boqol kontonka waxaad aragtaa guriga sidoo uu yahay iyo maxaa dhahay wixii haddana guriga marka aad ka heshay ayaa maxaa sameynaysaa hoosta ayaa eegaysaa lacagta waa 150 haddana waxaa leedahay guriga waa imisa qol haddana guriga waxaan aragnaa inuu yahay 2 qol iyo fadhigiisii again waxaan aragnaa inay guriga jika taalo iyo wixiisii oo dhan baa yaalan 5 ilaa 10 sano ayuu jiraa fooqaas waa meesha ay ku qoran tahay
binayash yani halkan waxa weeyaan wuu leeyahay dual gaski macnaheedu ay tahay bahalkii kombiga aan kuu sheegay biyaha kululin uu leeyahay aad buu muhiim u yahay balkonna uu leeyahay oo waa maxay balkonkeenii af Soomaaliya weeyaan say la tahay ashyaadi iyadana alaabtii ma taalo kana gurigana alaab ma taalo macnaheedu markaysan guriga alaab oolin waxa ka dhiganta alaab soo dhiganaysa oo la socdo sariirtaada soo dhigan waxyaalaha soo dhigan qaabka sariraha iyo alaabaha loo soo dhigtana insha Allah video gaar ayaan insha Allah idinku soo jeedin because kana ayaaba dheeraan hadaan isagana galno ayda teleega lacagta la iska qaado bishii guriga lagu hagaajiyo 320 tele marka qaarkood waxa halka ku qoran kuma qancaysid maxaa sameynaysaa waa waxaysaa oo waxa dhahaysa niyo ayda teleega imsa laga qaadaya oo wixii ayda teleega iyo marka qaarkood lacagta halkan ku qoran waxa weeyaan aad halkan ku aragto 150 tele waxa laga yaabaa inaysan noqonin lacagta ugu dambeysay ee guriga laga kireynayo qofkii markii aad isfahantaan xataa lacag baad basheegan kartaa tan ka yar oo isku raaci kartaan ajiklamaagi baynu aadinaa bal cid uu diiday cidaas baad ka arkaysaa anna maxaan sameynaynaa waxa noqotay dadka kamidka ah ka bacdi maxaa sameeyay waxa xigaysaa locationki meesha uu ku yaalo in locationki meelaha garanayso noqdo oo aragtay oo ka heshay dan dib baa noqotay maxaa sameynaysaa waa ayar baa waxaysaa barta ay arag ku qoran tahay baa waxaysaa marka hadda qofkan marka aan waxna numberkiisa ayaa noo soo baxay oo private nagada laakiin marka aad ku dhufato halkaas numberkiisa ayaa ku soo baxay ka bacdi macnaheedu waxa waad waxaysaa hadii aad luqadda Turkiga taqaan wanaagsan ayar wax oo qof luqadda Turkiga yaqaan u dhiibo kala hadal halka adoo fadhiya gurigaaga adoo fadhiya ayaa waxaad raadin kartaa in ka badan 50 guri waxaad ka heli kartaa in ka badan 10 guri waxaad ka dooran kartaa in ka badan 5 guri oo qiimahoodii wax walba aad ku eegayso halka intaad aad u tagtanin asagu dilala waxa aad sameynayso intuu sameeyo lacagtii aad bixin lahayd adigu maxaa lacagtii aad seed garin lahayd ka qaadanay dadka inta badan Soomaaliya laba waxba ugu wacan mid waxa weyn cadisnimo oo inuu inta raadiyo diidaya oo daxwayaan koob inta ay la hadlayo inta internet ka fiirinay baa ku adag ninkaas u tagaya iskaga sheegaya ma ay qofkan qof weyn ama family ah oo aqoonsho uma laha waxaan akhrintiisa iyo application-kii wixii buusan garanaynin wuxuu ku qasban yahay inuu iskaga tago meelaha kuwa ka furtay uu dhaho de guri ilaadiya kabacdina guriga dacagiisa uu ku tago kaasi xataa inta badan qofkaasi ma hela xataa guriga uu ku faraxsan yahay sababta oo guriga aad ku faraxsan tahay waxaad ku heli kartaa oo kale inaad adigu guriga aad raadiso guriga badan guriga ka wanaagsan oo ka jaban baad heli lahayd laakiin guriga marka uu jaban yahay xataa lacag buu iska tusaaran karaa anyway application-kan marka aan u arkay inuu muhiim yahay ayaan idinka la sheekeeyay insha Allah videogan waxaad moodaa inaan si yar oo dhaqso ah soo maray qaabka soo apply gareynaysa laakiin step by step waxaad ka arki kartaa application-keena video ku cisho intaad ka fahmayso kanaata waxaan kugu talinayaa in aadan hadii aad guri kareysanayso totally aadan isticmaalin aadan aadin qolyahaas aadan aadin waxaad aadaa kanaata application-kan saaxiibindeed baa la dhahaa sida u soo download garanaysaa ayaan ku tusay ku cisho videoga faham asaga kaas karaadi meel walba joogto ka shaqeynaya Turkiga meel walba joogto gobol walba joogto ayuu ka shaqeynaya ayar isaga isticmaal oo maxaan dhahaa lacagtaada save garayso meesha aad degaysa ka fiirso waxaad ku qanacsantahay ka raadi qiimaha aad bixin karto ku raadi isfahankaaga iyo waxaaga intaas baa kugu filan website-kiisana waa kana laakiin anigu website-kiisa ma aqaano qaabka loo isticmaalo in badan oo kamid ah website kuma isticmaalin oo kuma yani application-ka hadda sida aan kugu tusiyo telefoonka si la eeg website-ka kugu tusi karo laakiin asaga application-kan kanaata guri kuma koobna waxyaalo badan buu hayaa insha Allah oo hadda videogan inaan ku soo koobi karin laakiin adi maxaad samaysaa commentigaaga ku soo qor fadlan hadii aad wax aadan fahmin u jiro taas ayaan ku garan karaa insha Allah information-ka wixii ka dhiman ku soo gudbin karnaa waxaan halka ku soo gudbinaynaa information waqti ku bixinayna sidoo kale waxaynu afkaarta ka qaadayna waa hal qof ama laba qof yani xataa aad fikir dhibato waa la qaadanay kala fikirkaaga soo dhiibo soo qor video aad u baahan waxa adiga markaas aad u baahan soo qaado asxaabta kula rabta aday ku like kareeninkan macnaheedu xawayaan waxaas waa loo baahan yahay wixii loo baahan yahay inaynu qabanayna insha Allah marka fadlan ay loogin markaleena channelka subscribe kareysid حقيقة aad baan u caawinaysaa insha Allah waxaan rajeynayaa videogan inuu idin caawiyo insha Allah kiis dambe inaan isku arkayno assalaamu calaykum